wajigii labaad ee talaalka coronavirus ayaa ka furmay caasimadda dalka ee Hargeysa isku duwaha wasaaradda caafimaadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex Dr. Cabdicasiis Cumar Muuse ayaa barta faahfaahin ka bixiyay talaalka iyo faa'iidada uu leeyahay in muddada uu soconayo. waxaanu maanta ka bilownay gobolka Maroodijeex talaalkii labaad ee COVID-19 ama cudurkan viruska ah aanu kaga talaalaynay ummadeena sino ognahay cudurkan coronavirus waa masiibo qaran oo ku habsatay dhammaan caalamka oo idil inaguna aynu qayb ka nahay bilihii tegay sida bishii January iyo March waxay ahaayeen bilihii ugu badnaa ee dad aad u badani ay u dhinteen ay naftoodana ku waayaan cudurkan bishii March 27keegii ayaanu kuugu horeeyay ka bilownay Hargeysa Maroodijeex iyo gobolada wadanka oo dhan kana waa kiisii labaad sida saxda ahna waxay ahayd in 12 isbuuc kadib la bilaabo xilligii baanu ku soo hagaajinay talaalkii cusbaaba inoo yimid labaad ee aynu u qaadanaynay si aynu uga hortagno cudurkan coronavirus saadaradeed cudurkii muu dhamaan cudurkana waa cudur jira si ay hay'adda caalamiga ee adduunka caafimaadkuna ay noo sheegtay waa cudur jiri doona sida daraadeed miyeenan oran marnaba wuu dhamaaday markaan arki weyno cid u dhimatay iyo cid uu markaa saameyntiisu ay sidii hore kale noqoto wuu jiraa ilaa haddana dad uu ku dhacay way jiraan ha yaraadaan laakiin cudurkii inagu mutagin si aynu u dabargoyno ama aynu saameyntii faraha badneed ee uu ku yeelanayay dadkeena aynu meesha uga saarno waxaanu ka codsanaynaa cid walba oo qaadatay kii hore inay ka naqaataan geesta kale waxa ka hadlay isaguna mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland wajigii labaad aynu saaka u taagan coaching ka qaadano waxa halkan joogo RMOgii gobolka Cabdicasiis baa jooga oo kala diraya maanta hadii beedinka dalay baabuurkii iyo gaadiidkii aniguna hawdiri jamaan baxay qaar kamida bulshada talaalka qaata ayaa iyagoo dareenkooda ka dareen celiyay waxaan maanta qaadanay talaalka dhowskii labaad oo si wanaagsan baa lanoo soo dhaweyn la siiyay shaqaalo si fiican bay runtii hawsha u wadaan marka aad bay u mahadsantahay wasaaradda caafimaadka si fiican baa lanoo talaalay talaalkii hore waanu qaadanay kii dambana hadda ayaanu qaadanay si fiican oo socotaa shaqadu